tahay adoo xaq dib u dhac ku yimid qoladan commissionka hawlihii ku yara farabadnaa hadan isiraado yaan markaa imkaan loo kareeyay imkaan loo furay insha Allah imkaan bilaawna saacada ma la kareeyay imkaan loo furay imkaan bilaawna hawsha diiwaan gelinta adu gudoomiye goobtanatay gudoomiye goobtan baa tiimkaaga ama kooxdaadii maxaa ka jooga maxaa ka maqan waxa wada joogaan laakiin waxa naga maqan labadii wasaaradda arrimaha gudaha baa naga maqan oo sugayna iyaga laantoodna meesha ma furi karno waxba ma sameyn karno iyaga noo imaan mooyaan waxa qofkii ugu horeeyay ee la diiwaan geliyo taariikhda Soomaaliland waanay hore u soo marin fursadan oo kale in la diiwaan geliyo dadka codadka bixinaya uu noqday Saciid Cilmi Roble oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ay maanta bishii 14 bishii October 2008 waxay diiwaan gelintii aniguna aan xaq u yeeshay ama nasiib u yeeshay inaan noqdo kii koowaad ee ugu horeeyay ee dalka Soomaaliland iska diiwaan geliya ee numberka 001 qaata aad iyo aad farxad igu tahay dadkuna rumaantii inkastoo duruufo badan jireen haddana way suurto gashay inay maanta hawshaas ay dhaqan gasho مسؤولين كلا دوان أو كمدي أي مدحوين كحجين كالصومالي لان أحمد يوسف ياسين فيصل على ورابة قدوميها حسب قوعد قدوميها قرها وكيلة الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله إيه حبنا كله أي إسكدي وانجليه قبل كاسي ساحل halkii lagu bilaabay fikradu walba waxa la leedahay in dee qowl qaas marka kale halkii lagu bilaabay waa in la siiyaa fikrad dabcan waxa gobolka kale in noqdo moodis oo inaba shaqaynaya marka ay ku qaataan bas xoog leh dabcan marka ay dee isku sii kordhaya marka halkii lagu bilaabay waa in la siiyaa fikrad yaro kooban oo مسؤولين gobolka kormeerkaaga wuxuu ku ogyahay magaalada Berbera soo dlarta tuuleen kaliya goobiyo ma waxa laga yaabaa 3-4 days after in maro soo wax xisab ku wata fi awdal waxa gudbiya awdal waxa soo gudbiya Hargeysa inuu soo dhaxo soconaya bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala ilaahay inoo hilgeliyo waangelintii ilaahay aan dalay noogu deeqay xamaadkii ee roobkii inoo dajiyay ayuu timahad leh waxa kale oo mahadnaqaya dadka gobolka reer saaxil oo u horseeday dilgelintii diiwaangelinta waxaan loo bixin yahay gobolka diiwaangelinta la yiraahdo gobolka diiwaangelinta si lagu wanqalay inta ka bacda anaga farxad gaar ah noo tahay shacbiga reer Soomaaliland wixii horumar uu ka baqa doorashada ka baqayso anaga idin horseednay asxaabtu ka baqayso anaga idin horseednay diiwaangelinta ka baqayso anaga idin horseednay inta ilaahay nagu guushinayay tan weyno waxa noqonaysa guul bayno noqonaysa waxa quran ku arko waxa weeye in dadka haya computeriska oo marka hore noo sheego leeyahay qaar musuqmaasuq lagu qoray kii musuqmaasuq lagu qoray bahasha aan baran oo muuqda maga waxa leenahay war dadka musuqmaasuq ku qorta waxa wadi kari waaye dadkii wanaagsanaa wax galeen reebtan soo galiyo wala cilada qura horta inta waa intaas wali waa eeda saacad 6 qof ay joogo operation lixda dhalinyarada operation joogo ayaa maanta weeye waxa naga xumaada xagga farsamada lixda inaan baaway oo la yiri ninba liis u keentay saaxiibiyadii waxa naga xumaada waxa weeye oo wax qofkii loo dhiibay oo responsibility qaadan waayay soo kuwii shidaalka qaatay iyo baabuurta ee sodosada kale ku soo shubay iyagoo 1 milyan iyo 400 kun qaatay ee 6 saac ee maanta dib inoo riday kuwaas waxa la dawladdu waa inay talaabo ka qaadato inta lacagta qaateen lacagtiis kala seexday ee sabataashka nagu sameeyay kuwaas waa la qabtaa ولا واحد قبل كده قف كده كده بحال حلكيس inuu diiwaan gelinta si fiican u socon doonto laakiin hadduu qofka soo meesha joogo uu cuno uu danta gaarka ka horeysay guudka dib waxa way naga xuriyamisa runtii oo talaabo aynu muddo sugayna inay bilaabato diiwaan gelinta muddo soo rafasay laakiin insha Allah alxamdulillah rabbil alamin min guulaysanay inaynu bilowno waxaana qabaynay tahay guulaha kamida Soomaaliland ay gaadhay hawshan aynu hadda ku carqaladaha ka hor yimi barnaamijkan ayaa ah iyadoo ay gaadiid ka badan 100 ay u soo toobi weyday in ay u kala baxaan goobihii ay ku qornaayeen kadib markii kaalmihii qandaraaska shidaalka ka qaatay komishanka doorashooyinka ay ka baaqdeen gudashada hawshan oo aan sababta keentay la garanayn
hase yeeshee nin muwaadina oo isxilqaamay ayaa gaadiidka shidaalka si shakhsiya ugu tabarucay. waxay ku dhaliyo in wadanka in badan baan ka maqnaa dibadda waan wareegayay in wadanka xaq lagu leeyahay baan ogaaday anigoon eegin waxa duunya ah iyo wax kale oo musuqmaasuq oo jira markaan arkay baabuurada iyo meeshii cakiran go'aan baan degdeg u gaaray in shidaalka anigu jeebkayga ka bixiyo ama lacag kale ma yaan helin. goobaha 106 goobooda gobolkaasi saaxil ayaan in badan laga warhaynin iyagoo ku yaala goobo fogfog oo qaarkoodna ay yihiin qarfo adag isla markaasina aanay warbaahintu wada gaari karin. waxaase la sheegayaa in aan si aada loogu soo bixin barnaamijka diiwaangelinta sida uu noo soo sheegay wariyahayaga Raad TV Axmed Xuseen Warsame oo haatan ku sugan magaalada Berbera, iyadoo horena ay codsiyo dib u dhigisa uga yimaadeen maamulka gobolkaasi saaxil. komishanka doorashooyinka ayaa sheegay in ay suurto geliyeen shaqadooda caqabad kasta oo jirta. sidii hore baan ugu ballan qaadnay diiwaangelintu inay dhacdo waqtigii loogu talagalay iyo saacadii loogu talagalay. alxamdulilah weeye dhibaatooyin yaryar oo nasoo maray way jireen laakiinse intii aanu awood leenahay waxaanu doonaynay inaan wax allayaala wax naga hor joogsan kara aanu jirinin waqtigii aan dadweynaha ugu ballan qaadnay. waxaan aad loogu mahadnaqayaa xooy dadweynaha reer Berbera sida wanaagsan oo la shaqeeyey gacantana laga siiyey inay hirgasho hawshan. alxamdulilah weeye maanta imika socdaalkan saacadu ay marayso 9:15 waxaanu u marnay kormeer magaalada Berbera gudaheeda ah. marka waa ilaa 8 goobood magaalada gudaheeda. actually waxaanu galay oonu eegnayna waxay marayaan ilaa 12 waanay kii wada shaqeynayaan meel way jirtay ay ka taagnayd mushkilad yar oo ama printerka oo shaqeynay ama passportkii oo u geli waayay. howlgalka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ayaa gobolka saaxil waxa uu noqonayaa gobolkii ugu horeeyay ee laga suurtageliyo Somaliland, iyadoo guud ahaan gobolada kale ee dalkana ay sidan oo kale uga qabsoomi doonto howlaha isdiiwaangelintu. Xuseen Cabdilaahi Deeqsi, Raad TV, Hargeysa.